tan iyo burburkii dalkeena waxaa adkaatay nolosha asaasiga ah iyadoo dhammaan bulshada Soomaaliyeed ay soo waajaheen caqabado kala duwan taasi oo saameyn weyn ku yeelatay qoysas badan oo Soomaaliyeed ubadku waa ubax wadan kastaba uu leeyahay daayarteenu marka ay gaadhaan xilliga ay garaadsadaan waxaa loo diraa dugsiyada iyo goobaha waxbarashada si maankooda loo kobciyo balse ubadkeena qaar ka mid ah ma aysan helin wixii xaq ay u lahaayeen oo ah inay asaagoodu marka ay u dareeraan goobaha waxbarashada ay iyaguna qayb ka noqdaan balse taasi bedelkeeda waxay hore u qaataan gasaacyo ay ku jiraan caseeyaal iyo buraashkoodu iyagoo rajaynaya inay la soo baxaan nolol maalmeedkooda qaybo ka mid ah waxaa saaran mas'uuliyad culays badan oo aanay qaadi karin oo ah tan qoyskooda Maxamuud Cabdulqaadir oo safar dheer u soo galay Baydhabo ilaa Muqdisho sidoo ugu shaqaysan lahaa xirfadiisa caseeyanimo waxa uu ku shaqaystaa xirfadan marka laga yimaado noloshiisa uu la halgamayo waxa sugaya hooyo iyo 7 caruur ah oo uu ka tagay Allah ha u raxmaday Cabdulqaadir oo aabihiis oo hore u geeriyooday haddaba telefishinka M24 TV oo waraysi khaas ah la yeeshay ayaa uga warramay xaaladiisa magacaygu waa Maxamuud Cabdulqaadir aniga horta waxaan ka shaqaystaa caseeyaa saas u sheegtay marka maalintii wixii aan helo hooyadayaan wax ugu tuuraa anigana wax yar wixii ay soo haraa wax dhigtaa hotel oo ceelish ku yaalo habeenkii $1 lagu seexanayo jeefta habeenkii $1 iskaga dhiibaa hotelkaas seexana bil subaxii waa soo kaca maqaayada meesh ku taasho $1 oo kala waxa quraacdeeda ku quraacana waa imaana hadda 2 saac oo kale 3 saac oo kale inta soo shaqo taga shaqadeeda qabsana wixii markaas marmarka qaar laakiin wax waliba nasiibkaaga ay ku xiran tahay lacagta maalintii ku soo yaraane maalin way ku badnaane saa nasiibkaaga marka qadadii oo kalena waxaan ku leeyahay meel oo ubaxyaasha oo gabadha joogta waxay dhahay qadad walba anay u leedahay ilaahay dartiisa uu siisayadana maalintii wixii aan markaa ugu badan marmarka qaar waxa ku soo gasho $10 12 meelahaas oo kale soo gasho markana anigana hadda waalid wax kama sugooy aniga shakhsiga u shaqaysanayo waalidkayga bana ana wax qayb wax kaga bixinayo marka dhalinyarada Soomaaliyeedna shaqada maanta ku jira leeyahay dhihi lahaa shaqadayda way la qurux badan tahay aborto uu dhintay Allah u naxariisto hooyana ayadana Baydhabo degantaa marka ilmaheena waxa bay 7 waay gabadha horta waa la guursaday wiil ajir oo aniga iga weyn asagana kan uu ka shaqeeya waxbuu bartaa gabadhana aad gurigay maamusha saas wax u jiraan maalintiina aniga wixii helo wax u tuuro inshallah waa jeclaan lahaa inaan wax barto gelina aan shaqaysto laakiin hadda ma geli aan wax barto aan gelina shaqaysto waa jeclaan lahaa laakiin fursad hadda zaid hadana uma hayo laakiin waa raadsanaa fursadna waa u raadsan lahaa inaan wax bartana waa jeclaan lahaa sida ay dadku wax u baranay ilmaha yaryarka iyo kuwaan la faa'iido kuwaan iga weynba waa jeclaan lahaa inaan wax la barto laakiin gelina inaan wax barto gelina inaan shaqaysto waa rabay fursad aanay hadda ahay oo wax ku baran lahayn ma haysto laakiin waa la heli doonaa labis insha Allah aniga waxaan jeclaan lahaa inaan maanta dhibkan rafaadkan iyo noloshan aan ku jiro hadii ka baxo waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo madaxweyne wasiir iyo wax la rabo inaan noqdo dalkayga dhisto باقي لهاي maanta hooyadiina 9 bilood ee calooshan igu soo waday wayna soo barbaarinaysay dib far badan ay la soo martay maanta idinka bahda wax fiican idinka wax yar bahda weynaataan iyo laga caasinin hooyo abaalkeeda lama gudi karo in loo shaqeeyana waa muhiim si kastaba in loo shaqeeyo waa muhiim oo hada aniga horta maanta oo aabo hada nolosheena wax u sameeyo nolosheena inta ka bedel ma haysano aabeena oo naga dhinta Allah u naxariisto maanta ilmihiisa joogan shaqadayda aan maanta aan fadhiyo inaysan la igu yeesin oo la igu taageero
marka garabna la isiiyo maanta qof horta dadka qaar kuwa jiraan oo naxariis leh iyo kuwa aan naxariis lahayn inta doonida joogtid wax wali baad kala kulmaysaa marka hada waxaa jira qof ku dhahaya kaba ay sameey markaad kaba u sameeysidna ku siinayaan kun shilin kaba lagu sameeyo aniga laakiin oo qofka waa ka qaadan laakiin asiila hageeysa leeyahay kunka ay muhiimsan laakiin waxaa ka codsan lahaa in la garab istaago oo shaqo abuur la ii sameeyo oo maanta heerkan aniga taaganahay Soomaali inay isgarab qabato oo isku tiirsato ajaalaan lahaa waa Ibrahim Suleymaan Hanuuniye M24 TV magaalada Muqdisho.